Bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan daawadayaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka kooxda Barcelona inta aan gudagelin waxaan idinku baaqaynaa inaad subscribe saarto channelka Barka 252 warbixintan haddii ay ku soo gaartaan aad share gareyso aynu ku bilownay naadiga Barcelona ayaa u dhaqaaqi doonta ciyaaryahanka Fabian Ruiz haddii aysan la soo wareegin ninka Juventus qadka dhexe kaga ciyaaraya Emiliano Pjanic sida ay qorayso majalada Mundo Deportivo weeraryahanka Barcelona Luis Alberto Suarez ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabtay garoomada isagoo dhaawac uu qabay ka soo bagtay waxaana suuragal ahaan lahayd in Suarez inta ka harsan xilli ciyaareedka aanu dib u ciyaari lahayn horyaalka La Liga kulamada ka dhinna iyadoo xanuunka dunida ka dhacay ee kubadda cagta hakadka geliyay awgii hadda uu dib u soo kabasho dib u helay isla markaana uu qayb ka noqon karo kulamada soo aadan ee kooxdu ay ciyaari doonto saaxiibo badan ayaa naga soo codsaday inaan la wadaagno waqtiga uu bilaaban doono horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan 12 Sebtembar ayaa la filayaa inuu dib u bilaaban doono La Liga xilli ciyaareedka soo aadan bilowga bisha Agoosto ayaa sida caadada ah ay suuragal ahayd ama la bilaaban jiray horyaalka La Liga laakiin jadwalka ayaa noqday mid isbedel uu ku yimid haatan kadib markii xanuunka safmareenka ee COVID-19 uu caqabad ku noqday sii socoshada kubadda cagta dunida waxaana horyaalka uu bilaaban doonaa 12 Sebtembar ee sanadan dabayaaqadeeda aan ku guda jirnay 2020 kooxda Barcelona ayaa si cad u sheegtay in wakiilka xidiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ee suuqa kala iibsiga xagaaga dib marka uu furmo la iibin doono xidiga maadaama uu soo bandhigi waayay qaab ciyaareedka laga filayay Barcelona ayaa doonaysa inay si toos ah isaga iibiso xidiga qadka dhexe ee Philippe Coutinho laakiin waxa ay dalab balanayaan lacag dhan 105 milyan oo euro taasoo ah lacag aynan kooxna bixin karin xagaaga sabab la xiriirta xanuunka coronavirus kaasoo u dhigay dhaqaalaha dunida sidaa darteed Barcelona ayaa go'aamisay inay hal sano amaah ku dirto xagaaga qadka dhexe laakiin ay doonayso 10 milyan oo heshiiska amaahda ah iyo waliba inay kooxdu la wareegayso bixiso mushaarkiisa oo dhameystiran oo kooxdu sidoo kalena muddada amaahda uu kaga maqan yahay ay doonayso koox bixiso dhaqaalihiisa guud ahaan waa naga intaa daawadayaal wararka kooxda Barcelona subscribe saar channelkeena warbixintana share garee mahadsanidin